السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركز السود وواضح أدي هذا ومهتمين. وقال كم حرب أن ندي كله وذا قام مدحوين ترامب أي وحى أو حلكي كقاضي وزير كيسي عدالة بام بوندي سبب الحريرة قابك أي مشي صوبان دقستي إبستين فايلز. أرنتاسي أو حالي ورباهنتو أي أوجادين مدحوين ترامب أو لفيلة يسيد ورركو إشياء إن أو بري حلك كقاضو ayaa goordhow bartiisa True Socialka waxa uu ku soo qoray qoraal uu ku sheegayo in uu xilkii ka qaaday wasiirkii cadaaladda Pam Bondi. Arrimahaasi ayaan rabaa inaan idila socodsiiyo. Trump xalay khudbadii uu u jeediyay shacabka Mareykanka oo wax badan oo cusub uusan ku sheegin iyo waraaqdii furnayd oo madaxweynaha Iran shacabka Mareykanka uu u soo diray sidoo kalena maxaa ku qornaana waan idila wadaagaya. xalay ayaa waxa warbaahinada soo galay in madaxweyne Trump laga yaabo in uu xilka dhawaan ka qaado wasiirkiisa cadaaladda Pam Bondi sabab la xiriira qaabkii ay u maamushay soo bandhigistii Epstein Files. waxaan ognahay waxyaabo fara badan oo Trump la xiriirinayay Epstein Files in la qariyay isla markaana arrintaasi xisbiga dimuqraadiga ilaa iyo hadda wali ay daba joogaan. xitaa dhowr jeer oo Congress-ka loogu wacay wasiirka cadaaladda Pam Bondi su'aalihii la weydiiyay sidii loogu talagalay ma aysan uga jawaabin. waxaa jirta xitaa in Sabina waraaq oo xubno Republican xitaa ay ku raaceen dimuqraadiyiinta in inta loo yeero la dhaariyo kadib halkaasi su'aalo lagu weydiiyo. haddaba xalay ayaa warbaahinada sida CNN-ka iyo New York Times iyo ay ogaadeen iyo waliba Daily Mail in Trump uu qorsheynayo inuu xilka ka qaado wasiirkiisa cadaaladda Pam Bondi. waxaa la leeyahay xitaa waxa laga yaabaa inuu ku bedelo wasiirka ilaalinta deegaanka oo horeyna Congress-ka uga tirsanaan jiray oo la yiraahdo Lee Zeldin. Trump xalay intii uusan jeedin khudbadda dagaalka Iran uga hadlayo shacabka Mareykanka uusan u jeedin ayaa waxa la leeyahay labadoodu aqalka cad ayay ku kulmeen waa Trump iyo wasiirkiisa cadaaladda Pam Bondi. marka waxa la leeyahay Trump waxa uu u sheegay in uu dhawaan xilka ka qaadayo isla markaana ay gashay dambiyo aan laga cafin karin. maxay yihiin dambiyadaasi aan laga cafin karin oo ay gashay wasiirkiisa cadaaladda Pam Bondi? arrintaasi ayuu ku eedeeyay. waxa la leeyahay xitaa Trump waa uu ku wargeliyay ka hor inta uusan hadalkaasi jeedin in dhawaan shaqada uu ka ceerinayo. xitaa waxa la leeyahay waa ay baryootantay ama waa ay toogtantay wasiirka cadaaladda Pam Bondi oo waxay ku tiri Trump please waxaan kaa codsanayaa fursad inaad isiiso dheeri ah oo wasaaraddan aan ku sii hogaamiyo. laakiin waxa la yiri ma uusan ku faraxsanayn arrintaasi sidaas darteed maskaxdiisa ma uusan bedelin oo ma aysan ka dhaadhicin in uu xilka ka qaado iyo in kale. macnaha waxa ay dalbanaysay in waqti dheeri ah uu sii siiyo. marka waxa la leeyahay maanta oo khamiis ah maba la filaynin berri jimcada ayaa la filayay Trump inuu ku dhawaaqo laakiin hadda maadaama warbaahinadu ay ogaadeen sidaas darteed ayaa xilka qaadistan uu ugu sameeyay wasiirkiisa cadaaladda Pam Bondi. arrin kalena waa ay jirtaa waxa la leeyahay Trump waxa uu ka careysan yahay xildhibaanka la yiraahdo Eric Swalwell oo laga soo doorto gobolka California isla markaana hadda gudoomiyaha gobolkaasi u sharaxan ayaa FBI-du waxay ogaatay inuu xiriir la lahaa jaajuus wadanka Shiinaha u dhashay haweeney la yiraahdo Kristen Funk. arrintaasi darteed maadaama dokumentiyadaasi wasaaradda cadaaladda loo diray inay dacwada ku soo oogayso ama baaritaan dheeraad ah ay ku sameyn wayso darteed ayaa Trump uu ka careysan yahay. laakiin arrinta ugu muhiimsan waxa ay tahay sababaha la xiriira Epstein Files dokumentiyadaasi sirta ah. waan ognahay Trump ninkaasi inay saaxiibo ahaayeen wax badan oo Trump la xiriirinaya ninkaasi iyo faraxumeyntii loo geystay gabdhihii da'da yaraana in Trump uu ku lug lahaa laakiin wasaaradda cadaaladdu ay intooda badan ay qarisay laakiin waxyaabihii yaraa oo ay soo bandhigtay ayaaba Trump uu u sababeynaya in xilkeeda ay ku waysay. sidaas darteed maadaama waxa uu leeyahay maxaad waxyaabahan oo idil aad u wada qari waysay aniga ila xiriirinaya ninkaasi Epstein Files. haddaba madaxweyne Trump qoraalka uu xilka uga qaaday bartiisa True Socialka ayuu ku soo qoray wax yar ka hor marka aan muuqaalkan aan idin duubayo. waxaana uu yiri Pam Bondi waa muwaadin Mareykan ah oo aad u wanaagsan waana saaxiib daacad ah isla markaana shaqadeeda wasiirka cadaaladda waxay uga soo baxday si ay kalsooni ay ku jirto. sidaas darteed sanadkii la soo dhaafay ayayna xilkaasi hay sidaan ognahay hadda Trump 1 sano iyo 3 bilood ayuu xilka hayaa ku dhawaad. marka waxa uu yiri shaqo wanaagsan ayay ka qabatay la socoshada in wadanka laga cirib tiro dambiyada guud ahaan wadanka gaar ahaan dilalku hoos meeshii ugu hoose
si ay hadda waddanka marayaan ilaa iyo 1900 marka waan jecelnahay bam ayuu yiri waxayna u wareegaysaa shaqo muhiim ah oo si aad ah looga baahan yahay oo dhinaca private sector-ka ama shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay waxaana waqti dhow lagu dhawaaqi doonaa taariikhdan aan sheegi doono xilka ay qaban doonto marka kulley sidii wasiirkii hore ee amniga gudaha Kristi Noem ayaa xil yar loo magacaabi doonaa waxaan ognahay in Kristi Noem xilka Trump uu ka qaaday 5tii bishii la soo dhaafay ee March isla markaana uu ku bedelay Mark Wayne Mullen oo qoys ahaanna saaxiib ay yihiin Trumpna si aad ah warbaahinta uga difaaca waxa la leeyahay sababta kaliya ee ninkan hadda wasiirka cusub ee wasaaradda amniga uu xilka ugu magacaabo waxay tahay ninkaasi markasta uu warbaahinta ka hadlayo Trump ayuu difaaca Trumpna waa jecel yahay dadka warbaahinta ka difaaca oo yiraahdo waa madaxweynuhu ugu fiicnaa waddanka soo maray wax badan ayuu waddanka u qabtay waddanka waxa uu qabtay madaxweynuhu u qabtay maba jirin madaxweynayaashii waddanka soo ninka difaaca ayuu jecel yahay marka Trump waxa leeyahay sababtaas darteed ayuu xilkaasi ugu dhiibay Trump marka waxa uu qoraalkiisa bartiisa Truth Social-ka uu soo dhigay oo xilka uu kaga qaado uu ku dhawaaqay inuu xilka uga qaado wasiirkiisa cadaaladda Pam Bondi waxa uu sidoo kale sheegay ku xigeenkeedii ninka la yiraahdo Todd Blanche oo uu leeyahay si aad ah ayaa dhinaca sharciga looga qadariyaa in uu si ku meel gaar ah xilkaasi uu u sii hayn doono ninkan Todd Blanche waxaan ognahay waa Trump qareenkiisii qaaska ahaa markii ololaha doorashada uu ku jiray oo dacwadaha New York iyo ay uga socdeen Florida iyo waliba Georgia marka qareenkiisii qaaska ahaa ayuu wuxuu ka dhigay wasiirka xigeenka wasaaradda cadaaladda haddana waxa uu leeyahay isaga ayaa si ku meel gaar ah xilkaasi u sii hayn doono marka waa wasiirkii labaad oo Trump xilka uu ka qaado ilaa iyo hadda muddadii xilka hayo oo sanad iyo 3 bilood ah waxaan ognahay muddo ku dhawaad bil ka horana wasiirkii amniga Kristi Noem inuu xilka ka qaaday sabab la xiriira lacag 220 milyan oo xayisiin ay ku sameysay maamulka Trump ama madaxweyne Trump aysan ku wargelin oo madaxweynuhu uusan wax wara uusan ka ogeyn labaduba waa haween qofka saddexaad yuu noqon doonaa wayna arki doonaa laakiin Trump hadda xilkii uu ka qaaday wasiirkiisa cadaaladda Pam Bondi sabab la xiriira soo bandhigistii Epstein Files ayana loo badinayaa inuu xilkaasi uu uga qaaday dhinaca kale madaxweyne Trump xalay khudbad ayuu u jeediyay shacabka Mareykanka oo uga hadlayay dagaalka Iran laakiin wax cusub ma uusan sheegin madaxweynuhu waxyaabaha kaliya oo la isdhihi karo madaxweynuhu wax cusub ayay noqon karaan walow maalmo ka horna uu sheegay wuxuu yiri dagaalkan muddo waxaan soo gabagabayn doonaa 2 toddobaad ilaa iyo 3 toddobaad gudahooda madaxweynuhu faankiisii lagu yaqiinay Iran meel kasta waa ka burburinay dhinaca ciidamada cirka badda madaxdoodii waan dilnay waxyaabahaasi ayuu sheegay waxaana sidoo kale marinka Hormuz mar uu ka hadlay oo yiri marinka Hormuz si caadi ah ayuu u furmi doonaa marka dagaalkan uu dhamaado wadamadii isbahaysiga NATO-na mar kale ayuu wuxuu yiri anagu shidaal uma baahnin shidaal ka badan Ruushka iyo Sacuudiga ayaan haysanay adinku taga marinka Hormuz ee shidaalkiina soo qaata waxa jirtay saacado ka hor intii Trump uusan khudbadda u jeedin shacabka Mareykanka ayaa madaxweynaha waddanka Iran ayna Mas'uud Pezeshkian waraaq furan oo luqadda Ingiriiska ku qoran oo ilaa iyo 1000 xaraf ka kooban uu shacabka Mareykanka uu u soo diray waxana uu sheegay shacabka Iran in aysan cadow la ahayn shacabka Mareykanka sida darteed dhowr su'aalood ayuu weydiiyay shacabka Mareykanka wuxuu yiri ajandihii America First oo danta Mareykanka in dan kasta laga hormarinayo ahayd hadda dawladdiinu ma qabanaysa bal eega qarashka iyo sidoo kale dadaalka ay dawladdiinu ku bixinayso dagaalkan gardarrada oo nala ku soo qaaday waxa uu yiri Iran mar kastaba waa isdifaacisay waxana uu sheegay in Iran marnaba aysan dooran gardarro iyo sidoo kale in ay waddan kala gumaysato ama waddan kale ay awood ku qabsato markastana anagu waxaan ahayn kuwa isdifaacaya waxa uu yiri burburinta lagu hayo waxyaabaha aasaasiga u ah nolosheena sida korontada biyaha arrintaasi waxa uu yiri cawaaqib ayaa ka dhalan kara kaasi oo aan ku ekaan doonin wadamada amaba xuduudda Iran oo wadamo kale u gudbi doona waxa uu sidoo kale sheegay in aysan cadow la ahayn shacabka Yurub iyo sidoo kalena shacabka wadamada dariska la ah marka su'aalahaasi kala duwan ayuu shacabka Mareykanka u weydiiyay waraaqdaasi furan ayuuna u soo diray shacabka Mareykanka uu xitaa ku sheegayo in dagaalkan uu ahaa dagaal laga baaqsan karay Mareykankana ay Israa'iil ku qasabtay sidaas darteedna waxa uu sheegay in ay mar kastaba isdifaacayaan oo aysan isdhiibi doonin marka waraaqdaasi furan ayaa shacabka Mareykanka saacado ka hor intii uusan madaxweynaha Mareykanka uu soo la hadlin ayuu u soo diray shacabka Mareykanka waxana uu sheegay Iran waxa ay tahay yiri waddan adkaysi badan arrintanna ma ahan markii ugu horeysay ee nagu dhacdo waanan ka bixi doonaa Trump xitaa waxa uu bartiisa Truth Social-ka soo geliyay xoogaa ka hor buundo muhiim ah
oo ay Mareykanku burburinayaan. Trumpna waxa uu yiri waxa bundadan tii ugu weyneed oo aan burburino, isla markaana waxa uu sheegay in ay kuwa kala jiri doonaan. Hadda waxa uu yiri waa inaad nabad qaadataan ama heshiis qaadataan inta uusan waqtigu dhamaanin, maxaa yeelay wuxuu yiri wadankiina weli waa uu la badbaadin karaa. Sida qoraalkiisa uu ku soo qoray wuxuu leeyahay wadan muhiim oo wanaagsan ayuu idin noqon karaa, marka waa inaad heshiis qaadataan ayuu leeyahay. aad iyo aad u mahadsantiin.